إنا لله وإنا إليه راجعون. faahfaahinno dheeraad ah ayaa waxaa laga helayaa khasaaraha ka dhashay qaraxa ismiidaaminah oo saaka ka dhacay xerada ciidamada jenaraal dhagabadan oo ku taala eekis warshadii hore ee nacnaca ee degmada wadajir. qaraxa ayaa waxaa fuliyey qof isku soo xiray walxaha qarxa kaasi oo beegsaday dhallinyaro loo qorayay ciidannimo si loogu tababaro gudaha xeradaasi. wararka ayaa sheegaya in qaraxa uu ka dhacay afaafka hore ee xerada xilli ay saf ku jireen askarta cusub ee loo diyaarinayay ka mid noqoshada ciidamada gorgor. sidoo kale qofka isqarxiyey ayaa la sheegay inuu iska soo dhigay dhalinyarada doonaysay in ay qortaan ciidannimada isla markaana uu isqarxiyey marka uu soo galay safka. inta la xaqiijiyey waxaa qaraxa ku dhintay in ka badan ilaa iyo 10 qof oo markaa ka mid ahaa dhalinyarada meesha ku sugnayd iyadoona ay ku dhaawacmeen tiro intaasi ka badan oo 20 meeyo lagu sheegay. xaaladda meesha uu qaraxa ka dhacay ayaa aad u kacsan waxaana sidoo kale goobta ka dhashay burbur aad u xoogan. weli ma jiro wax hadal ah oo markaa ka soo baxay saraakiisha laamaha ammaanka ee Soomaaliya oo ku aadan qaraxaasi geystay. khasaaraha badan qaraxan ayaa ku soo aadaya iyada oo ay hore u soo baxayeen digniino ku aadan in gudaha magaalada ay soo galeen rag wata jaakadaha qaraxyada isla markaana doonaya in weeraro ismiidaamin ay ka fuliyaan gudaha magaalada Muqdisho. si kastaba ammaanka magaalada Muqdisho ayaa muddooyinkan dambe ahaa mid faraha ka sii baxayay waxaana ka dhacayay falal lidi ku ah amniga sida qaraxyo iyo dilal qorshaysan. dhanka kale taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya General Odawa Yusuf Raage oo war ka soo saaray qaraxa ismiidaaminta ee ka dhacay xerada jenaraal dhagabadan oo ku taala degmada wadajir ee gobolka Banaadir. Odawa ayaa marka hore faahfaahin guud ah ka bixiyay khasaaraha ka dhashay qaraxaasi oo uu fuliyay ruux isku soo xiray waxyaabaha qarxa waxa uuna xaqiijiyay inay ku dhinteen ilaa iyo 10 ka mid ah dhalinyarada doonaysay inay ku biiraan ciidanka xoogga dalka waxaana ku dhaawacmay sidoo kale tiro 30 meeyo ahi. taliyaha ayaa sheegay inuu qaraxa ka dhacay bar control oo laga galo xerada xilli ay dhalinyarada sugaysay baaritaan si ay u galaan gudaha waxa uuna tilmaamay inuu soo dhaxgalay ruuxa isqarxiyay oo watay jaakada qaraxyada. hadal uu soo saaray Odawa ayaa u qornaa sida tan Allaha u naxariistay waxaa dhintay 10 ka mid ah dhalinyarada doonaysay inay ku biiraan ciidanka xoogga dalka waxaana dhaawac uu soo gaaray 20 kale kuwa oo ku sugnaa banaanka kontaroolka laga galo xerada ciidanka ee jenaraal dhagabadan. dhalinyarada ayaa sugaysay baaritaano ka hor inta uusan dhex galin qofka naftii haligaha ayuu yiri. sidoo kale dhalinyarada qaarkood ayaa waxaa soo gaaray dhaawacyo halis ah iyada oo markaa la geeyay goobaha caafimaadka oo ku yaala magaalada si loogu dabiibo xaaladooda caafimaad. qaraxan ayaa ku soo aadaya iyada oo hore ay u soo baxayeen digniino kala duwan waxaana sidoo kale jirta xilligan cabsi guud ah oo soo wajahday saraakiisha xilligan ku sugan xerada jenaraal dhagabadan oo ku taala degmada wadajir waxaana tani ay tahay mid markaa qorsho cajiib ah oo dagaalamayaasha al-shabaab ay u soo maleegeen ciidanka dawladda Soomaaliya gaar ahaan xarumaha dawladda oo muddooyinkan dambe cabsi aad u baahsan ay ka jirtay.